madashatan qiimaha iyo quruxda badan ee ilaahay keen isugu keenay ee caqliga fayow lagaga soo shaqeeyey rag iyo dumarba ka soo shaqeeyeen waxaanu ku salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ugu soo hawshooday degmada tan ceelaf ee gobolka Sanaag iyo ciddii la soo qabatay hawsha waxaanu hambaleynaynaa hawshii ka qabtay degmada ceelaf ilaahay ha ku guuleeyo waana ku guuleystay ilaahayna waxaan leenahay ku guuleeyo waana sibooda nabadaas waa soo dhaweynaynaa ciide oo meesha la yidhaahdo eelgoble magacii bedel laasgoble oo caqli fayow intii ilaahay isugu keenay qaranka yidhi maxay noo dhana ee alla garansiiyey madashaa qiimaha leh wixii alla ka keenay waa siboodiyana wixii ay halkaa ka yidhaahdeen waa qaadan mid maqan iyo mid joogada waa u qaadnay reerka magacaan aan ku hadlaya leh ama shacbo bari baan odhan karaa muuse bokor baan odhan karaa waa sibood intaas intaa weeye inta kale waxa weeye waa inoo wada tidhaahdeen bishana halkeeda laga eegaa waa inoo wada tidhaahdeen waa ku gowracannahay saanu galay maarkaysa intaasaad kala sii dhawaataa waa kala sii dhawaanaynaa waa inoo wada tidhaahdeen waa hadal jira oo dee dowlad iyo shicibba ka daragsan hadalka ceeriyan laakiin waa laga dhagaadaygaye ciidamada qalabka sidaaye gobolkan iyo degmada tan haddaan odhan karo dowlad kaleba ma aragno annagu ciidamada qalabka sida maaha dembi kuma qabno bal horta madaxweynuhu mustabiixi iyo saddexdiisa gole waa salaamaya waxaan kaloo salaamaya maareeyaha madbacadda qaranka wuxuu ninkii jiray warba intaan raboobanaya reerii dareereen marka urta la helayo aad iyo aad waxaanu halkan uga tahniyadaynaynaa beesha Axmed Faarax ee sida wanaagsan shirkooda u qabsaday ee u midoobay waxay ka dhigan tahay biciidoo midoobay Axmed Faarax oo midoobay wuxuu ka dhigan yahay biciidoo midoobay bishu halkii ay ka soo bixi jirtay baa laga eegaa wax wanaagsan iyo khayr baan rajaynaynaa aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa midowga ay midoobeen waxaan leenahay beelaha kale ee gobolkabana sidaas leeg bay insha Allah u midoobi doonaan waan soo dhaweynaynaa tafaraaruq waa inuu meesha ka baxaa niiradii khilaafka waa baxday yaroo kaftana shirkii beelaha biciiday qodobada ka soo baxay shirka aad baan u soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaynaa inta ay ku dhawaaqeen intaas inta weeye inta kale waxaan leeyahay shirka kan urushe dee waa sida loo yiri insha Allah kaasa alla tisqaadayaa beel waliba saasay noqonaysaa kaana intaasaan ka gaadhayaa ka kale waxaan leeyahay nabadgelyada gobolka Sanaag horena uga socotay ee loo waday oo degmada Ceelafay ka socotay halkana ka laga waday baad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweynayna nabadi waa waxa dalka lagu joogaa waa soo dhaweynayna taa kale ilaahay daraato shaqaaqada ka dhacday iyo dagaalka ka dhacayna waxaanu leenahay ilaahay yasiro oo iyana nabadgelyo ilaahay dhex dhigo baanu leenahay oo dhiiga muslimka Allah joojiyo waxaanu kaloo ka mahadnaqaynaa oo ilaahay ugu shukriyeynaa barwaaqada ilaahayna siiyay inuu dhex taaganahay kumaanku shukriya inaynu ka naqlaabaan loo baahiyay waxaynu u mahadnaqaynaa oo anagu aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahweynta Axmed Faarax ee halkan shirka inoo qabatay ee juhdiga badan gelisay shirkan ee ku soo tacabtay ee muruqeeda iyo maalkeeda iyo maskaxdeeda mideeyay ee islaam xaartay
وحول بقبتي وحليها aad iyo aad baan shirka ugu soo dhaweynayna waxaan leenahay mudaniga marwooyin salaadiin cuqaal cid kasta ay yihiin waxaan leenahay wayna soo dhaweynaynaa wayna ku hambalyeynaa waxa wanaagsan ay qabateen halkan dooxadan aynu joogno xataa laas galool anagu galoolkii kuma araga gobbaan ku aragnay leenahay ergada ajiibtay meel fog iyo meel dhow mid kasta ka timaadee salaadiinta ajiibtay ergada nooc kastoo ay tahay waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay sidaa u ajiibteen shirkaa oo aynu ugu nimi waxaan leenahay taasina waa hambalyo labaado wax weyn baa la qabtay dadku marka aad casinto ee loo yeedho ee la isxil qaado ee lagu yimaada waa mahad iyo jacayl laysu qabo halka waxa weeye dadkii baa isugu yimi is ahaa wixii gacal kala maqnaan jiray geel weyso oranabuye waxay nahay dadkii naf iyo maalba ka dhaxay nabadgelyada iyo Axmed Faarax maanta waxay ku tashadeen nabadgelyo waxay ku tashadeen wixii ay leeyihiin inay si wanaagsan u doontaan oo nabadgelyo waxay ku tashadeen inay wixii lagu leeyahay si wanaagsan oo gobonnimada isaga bixiyaan way ku tashadeen وسيدي الله هاجي أنا جو واحد بس عذاريني ماشي اللي هذا عرقابه وحلا هري ودتك كهري أفر بيلات بري دوّد وحنني أم بابين أفر بيلات أنا بيل قرآن وهي وحوي برع وابيل هدس وابيل دبري وابيل لسعود وابيل ضرم وابيل إنكم بأفر بيلات إن رحري وحنا أفر بيلات كأم بابين وبيل قرآن أنتو شقين تاسن wax ku noqonayna wafsiga timaadana afarteena intaynu dalka hadli ahayn afarta beeladu bas xanta markaaseen ku ilowna danahayni waxaan leenahay taasna way bilaaban tahay nabadgelyada ka dhacday ee halka aad iyo aad u xiimaqlaaba way taageerayaan waana aad iyo aad noo taageerayna waxaan ku daraynaa gobolka wixii ka dhacay waxa jirtay